kulanti wacan salaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka si toosa wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdilcasiis rieli sidoo kale barnaamijka waxaa martiigu ah doctor cali macow aweys oo markaasi dhanka su-aalaha caafimaadka ka jawaabi doono toddobaadkan waxaynu diiradda saaraynaa amba aynu gorfeyneynaa amba iminkaba aynu ku qaadanaynaa barnaamijka waxyaabaha ugu badan amba xanuunkan soomaalidu ay u taqaano gastriga amba laabjeexa hadba sida qofka uu ku asiibo meelaha ugu badan ee uu saameynta ku yeesho waxyaabaha keeno sida loo daaweeyo iyo weliba talooyinku aadan gaaska gaasku wuu nuucyo badan yahay laakiin soomaalidu waxay yaqaanaan marka boga laga qabto oo keliya amba hur uu dareemo ayay soomaalidu gaas u yaqaanaan haddaba taas ayaynu jecelnahay in markaasi aynu diiradda saarno sidoo kale barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa dhowaan dunidu waxay shaacisay gaar ahaan dalka britain waxay ku dhawaaqeen in la helay daawadii covid-19 amba coronavirus sax ma tahay haddii la helo daawada saxdaa ma la helay daawadaasi ma daawadii ugu horreysay ee coronavirus loo soo saaraa hore miyaa loo isticmaali jiray haddii hore loo adeegsan jiray maxaa lagu daaweyn jiray iyo arrimo kale ayaynu rabnaa in dhakhtarku uu noo ifiyo kadibna su-aalaha qadaadka teleefanada ayaynu gelaynaa daawade haddii aad leef nooga daawanayso facebooka waad soo qori kartaa aragtidaada iyo weliba sidoo kale su-aasha daktarka aad u qabto si uu kaaga jawaabo amba uu kaaga qanciyo barnaamijku waa barnaamijkii caafimaadka doctor soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز آدي أدبان كوجو مهد علنا يا وحان كلو رواء إن أنا مهد عليو سومالي كيبل شغالي هذي مدح هذي ميل كستأي جوجانبا خاصة غير مقدشو أنا هذا لايف أنا وفردنو استوديو مقدشو كيالا أيان سلام يا هرتوري آدي أدبان ما سنتين وفرصة وناكسن أدنسين إنسان أو أن أمد الصومالية ثلاث أختار أما وعيد جلد aan ugu samaynayno wiig kasta idinkoo waqtigiina qaali aad noo soo qaadataan marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladiisa khaasatan reer muqdisho aan hadda waqti xaadir la joogo iyo mataqaana gobolada oo dhan waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka aan dib u soo qaato topiga aan wiig kastaba aan mar kastaaba dhahno mataqaana waa topigaas waa muhiim oo hadda cudurkan coronavirus ama covid-19 loo yaqaano waa aad iyo aad cudur khatar ah cudurkaas oo aan wanaagsanayn hadduu kugu dhaco dhibaato badan kugu reebi kara laakiin hadduuna kugu dhicin ka feejignaan karto haddii aad ka feejignaato ama iska ilaaliso aad ka badbaadayso marka horta ka hortagga ka wax walbaaba waxaa ka muhiimsan ka hortagga ka dabatagga waa dhib badan yahay lacag badan bay kaa gelaysaa qarash baa kaa gelaya adduun dhan buu kugu qaribaya marka ka hortagga wax ka fiican ma laha adduunka waxaa maanta hor loo maray wax walbaaba ka hortagga in la sameeyo wax walba in laga hortago intuuna kusoo gaarin dhan kastaba ha noqoto intaad nooshahay marka sidee looga hortagi karaa sidaan hadda ka hor sheegnay gacnahaas inaad iska dhaqdo mar kastaaba adan salaamin gacanta adan u dhiibin marka kale bulshada badan laysku imaanayo haddii aad iska ilaalisaan oo runtii ay aad iyo aad u wanaagsan tahay haddii kala dheeraataan marka weliba dhalinyarada iyo dadka yaryar ma aragtay dadka waaweyn ee guryaha jooga inay ka dheeraadaan haddii qof duufaya oo diifin ka socdo ama sankiisa soconaya ama nin mataqaanaa qunfacaya ama nin hindhisaya haddaad aragto ka dheero afka ka xiro adiga keliya maaha isbadbaadin qafkaasna waa badbaadinaysaa afka haddaad ka xirato mar haddaad qunfacayso khatar ayaad ku jirtaa isfiiri is ilaali marka cudurkan hadduu kugu dhaco oo ku haleelo wuxuu leeyahay madaxa inuu ku xanuuno wuxuu leeyahay qandho fara badan wuxuu leeyahay murqaha ku xanuuna lafaha ku xanuuna haddee dhibaatadaas ayaa kugu bilaabanaysa marka dambe wadna garaac fara badan haddee qunfac yaryar baa imaanaya oo riixriix ah waa riixoonaysa qunfacaas yaryar marka uu yimaado guduhu sii galayaa
neeftii baa kugu dhegaysa marka ma neefsan kartid neefta gadaal uma qaadan kartid inaad dibadda soo saarto mooyaan dib uma qaadan kartid heerkaas haddaad gaarto meel xun baad maraysaa aad iyo aad u adag haddii aan sida u dhaqsaha badan wax laga qabanina wuu ku dilayaa taas waa la hubaa ilaah baa wax dila horta dilaa waa ilaahay laakiin cudurkaas waa sabab buu kuu naqanayaa oo ku dila marka waxaad arkaysaa cudurkan wax fudud maaha hadda waxaan maqlayay shalay toole inta ugu yar ee la helay Soomaaliya alxamdulillaah ilaah baa xamdi iskale waxaad arkaysaa dadkiiba xoogaa waxaad u moodaa inay fahamsan yihiin hadda inay wax fahmeen weliba gobolka Banaadir xoogaa yar inay ka amaan heleen baad moodaa Somaliland baa la sheegaya oo xoogaa ugu badnaa iyo koonfur galbeed oo hal qof ah alxamdulillaah wixii hoos buu dhacay ilaahay ha inaga qaado annaga Soomaali haddaan nahay tabarna uma hayno waxaana uma hayno runtii kharashna uma hayno dagaalka aan ku jirno ilaahay ha inagu garab galo Soomaalidana way iska dheega adag tahay oo marka ayagana waxaa la rabaa inay dhegaystaan dhaqaatiirta wacyigelinta ay sameynayaan bahda caafimaadka maaragtay wasaaradda caafimaadka weliba wasiiradda oo habeen walba soo fariisanaysa oo ku dhahaysa war iska jira oo intaasaanu helnay rabto inay ku tusto waxa meeshaan ka socda inaan haddii aan ka taxadarno aan ka fakan karno aan iska ilaalin karno marka taas waa muhiim ka dabataga haddaan raacno ka dabataga waxa waaye haddiiba cudurkii uu ku haleelo guriga ha isku celinin haddii qunfacad keento neefta kugu xiranto oxygen baad u baahan tahay hawa u baahan tahay dawa u baahan tahay dagaal xoog laha u baahan tahay hadda waxaan maqlayay dad badan oo ka soo kacay inkastoo markaad fiiriso inta dhibaatada gaartay 2600 iyo xoogaa inta bogsatayna 600 ah way kala dheer yihiin wiigan waa ka hadalnay laakiin waxaad arkaysaa weli cudurka inuu dad badan oo ku haya dhibaato shalay waxaa la sheegay dad badan inay ka soo bogsadeen waa alxamdulillaah intii dhimatay allah u naxariisto ummadii ay ka dhimatayna sabar iyo iimaan allah ka siiyo laakiin kuwii bogsadeen waa alxamdulillaah kuwa hadda cudurka u jeefana ilaahay lafahooda caafimaad allah u geliyo ilaahay cudurkaas hawada ha ka raacsiiyo wada taas ayaa muhiim ah marka dawa i weydiiyey cabdicasiis wuxuu i weydiiyey markaan dib ugu soo noqdo dawadan waa loo saaraa la yidhi oo ingiriisku ay ku dhawaaqeen ingiriiska wuxuu sheegay dawadaas in lagu dhawaaqay United Nationskana waxay tiri dawadaas waa tii la siin lahaa haddii aan cabdicasiis oo runta kuu sheegay dawada la sheegayo anigaan 38 sano dhakhtar ahay 38 sano haddii qof cudurka sanbabka laga hayo ama cudur adag hayo dawo lala dagaalamo oo kowgiiba fakta hore dagaalka lagu galo waa dawadaas Jarmanka hadda waxa uu ummadiisa ay u yartahay inta dhimatay waxa weeye dawadaas goor hore la isticmaalaya hydrocortisone nin kastoo Jarmanka soo baxa isbitaalkiisa jaamacadiisa oo isbitaal soo mara oo meeshaas takhasus ku qaato aan aqoonin ma jiro fakta hore waa kii ninka uu dagaalka lagu galo ويا داوداس وداود بقى سعيد وبدن وليبا داوداس دبعتي لهدهاي حدي جيركادا u baahnaan laakiin jirkaaga haduu u baahan yahay wax badan bay ku taraysaa ayada dhanba waxa la steroid hormone la waa hormoonkaas steroid kaliya lafaha lagu daaweeyaa caloosha lagu daaweeyaa sanbabka lagu daaweeyaa cudur kasto ayaa lagu daaweeyaa runtii oo dhibaato badan ah waxa jira maaragtay anti rheumatic oo asaga markii daawo kale lagu siiyo ka horta marka hore fakta hore asaga waa in lagu daaweeyaa marka daawadan ma aha mid hadda cusub hadda soo baxday oo la bumbuurinayo ma aha daawadan waa dawo hore loo garanayay oo Jarmanka isticmaalkiisna goor hore oo isticmaalo runtii marka haddii hadda la ogaaday ay dibda waaba cajiib ani waaba yaabay markaan arkay maaragtay break news oo la leeyahay daawadaas aniga goorban garanayay goor hore aan garanay goor hore aan ku dagaalkaas aan ku galayno waliba markaan qofka aragno waliba high doses ayaan markiiba ku dhufanaynay sidii qofka uu loo soo celiyo degdeg marka dambana tartiib wixii in laga saaro jirkiisa ay ka dhamaato dawadaas laakiin waxay leedahay aniga waxaan ku arkay dad dhalinyaro ah aan xafiiskayga ku arkay oo isbitaalkayga ku arkay oo dawadaas la siiyay muddo badan lafahay burburine gaas ay leedahay fara badan dhibaatooyin badan bay leedahay adiga baa bararaysa adiga dhan laakiin waxaa la rabaa wixii aqoontiisa inaad leedahay haddii kale waxa uu imaanayaa mid la yiraahdo Addison syndrome keliyahaaga ku dhufanaya
dawada hadday kaa badato aan ninka aqoontiisa aan lahayn laakiin waxaa loo baahan yahay adigana sidee ku badbaadaa laguna ammaan gelin karaa oo aad ku heli kartaa caafimaad iyadoon dawada ayna kaa badanin marka taasaa muhiim ah waa tahay waxay kula noqotay in la yidhi madax xanuunka paracetamol oran oo kale breaking news saasoo kale u eg tahay maxaa dhacay dhe aniga daawadaan runtii aad iyo aad baan u aqaanaa oo aqoon badan baan u leeyahay wax badanna waa soo isticmaalay waa doctora dadka soomaalida waxaa daashaday oo dilay gaas qof walba oo soomaaliya amba si oodina ha u hayo amba laabta ha ka hayo amba wax yar oo raashina qofkaad casuulta maanta wax u cuni ma karo wuxuu ku leeyahay kaniga saki gaasaan qaba kaasiga saki gaasaan qaba kan ha ii soo dhaweynin dawooyin fara badan oo boqolaalna jawaabka lagu wataa oo wada shulxanaya oo la wada cabo marka saameynta xanuunkan gaaska bal sharaxaad kooban naga sii cabdilcasiis ahl aad iyo aad wanaagsan ayaad i weydiinaysaa oo aad muhiim u ah weliba soomaalida khaasatan soomaalida dhibta haysata waxa waaye gaasa ay haya gaas calooleed iyo gaas mataqaanaa calool iyo gaas mindhicir gaasa la yidhahda ma jiro horta gaaska waa caloosha keliya oo fuulaha halkaas uu leeyahay hase ahaado gaaska waxaa jira sharuudou leeyahay sharuuddaas haddii aan la marin ma kaa dhammaanayo weligiis saasaa u daldalaysaa marka daawada gaaskana dhib bay leedahay keliyay wax gaarsiinaysaa calooshaadii qalalinaysaa qalalay ka dhigaysaa markii gaaskiyaa ka dhammaanaya cunta ma cuni kartid gaajana ma u adkaysan kartid dhibaato badanaa ku imaanaysa horta gaaska marka la leeyahay 4 meel ayuu ka imaan karaa calooshuu ka imaan karaa beerkuu ka imaan karaa ganacuu ka imaan karaa xamiitaduu ka imaan karaa haddii kuwaas aan la baarin oo intaad meesha tagto gaasa ay ahayo dawada gaaska lagugu qabto kowgii waxbay ku taraysaa waad dareemaysaa waxba ay ku taraysaa laakiin bil markaad qaadato wax ku tari mayso daawadii waa xoojinaysaa daawo ka xoog badanaa lagu siinayaa marba marka xigta markii dambe waxba ku tari maayo marka hadday heerkaas aad gaarto adiga dhibaataadba isgaarsiisay marka horta gaaska waa jiraa adduunka dhan oo ka jiraa dawooyin oo casri ah waa la soo saaray laakiin waxaa loo baahan yahay nin aqoontiisa leh inaad hesho oo ku daaweeya sidii gaaskaas lagaaga ciribtir loo sameeya laakiin hadduu kugu daho chronic kugu noqdo sida loo ciribtiraa way adkaanaysaa waxba ma sheegaysa tuba haddii lagu geliyo gudaha lasoo fiiriyo la arko inuu dhibaato geystay maxay sheegaysaa dawaa u baahan tahay adiga waxaa weliba uu samaynayaa wax la yidhaahdo instructing factor damaging marka caloosha xuubka wax qaribaya daawada gaaska haddii takhtar kuu qoro control aad ku jirto waa og yahay intee heerkee 6 wiig 3 bilood 2 bilood intii ku siin karo marka ka bacdi wuxuu ku leeyahay daawada meeshaas looga baxaya ha qaadanin mar haddii ay tahay oo mataqaanaa cuntada aad mataqaanaa basbaas iyo balaayo iyo liin iyo haddaad iska badiso waa dhici kartaa inuu kugu kaco laakiin badi wuu kaa haraya waa tahay waxaan fursad siinaynaa saaxiibada nagu xiran ee baraha bulshada iyo weliba kuwa markaas doonaya in ay soo wacaan taleefanka lambarkiisu uu yahay 86 eber oo haddii dalka dibaddiisa ay joogaan +2521 ay ka hormarin karaan oo iminkaba qadadku ay furan yihiin iyo weliba asxaabta kale ee dhanka Facebooka qofka ugu horeeya waxaan ka dhigayaa Maxamuud oo dhanka Facebooka nagala soo xiriiray doctor waxa uu leeyahay Maxamuud dhabarka ayaa aad ii xanuunayo markii aan guriga joogo iyo markii aan jiifo naruuro yar ayaan helaa markaan dibadda u baxo 2 saacadood wax ka badan amba 6 saacadood wax ka badan ma jiifi karo saameyn intee la eg amba maxaa haya uu leeyahay waa Maxamuud aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo Facebooka nooga soo qoray aniga iyo Somali Cable TV oo live aan ku jirno Muqdisho marka Maxamuudow adiga ma garanayo horta da'daada ma garanayo inta aad jirto garan maayo laakiin waxaa jira cudur la yiraahdo spondylosis ankylosans ayaa jira spondylosis ankylosans-ka wuxuu galaa dhabarka hadduu galo hurdada jiifka ma jiifin kartid kuleel fara badan iyo xanuun fara badan ku imaanaya marka aad 5 saacadood jiifto ma jiifi kartid adiga marka isgedinaysa xanuunkaasaa ku diidaya jiifka waa waxa weeyaan wax mataqaanaa sida rheumatism-ka uu ka mid yahay rheumatism-ka ayuu qaarka yahay oo lafaha gala waa rheumatoid arthritis-ka la leeyahay ayuu qaarka yahay laakiin waxaa la yidhahdaa spondylosis ankylosans haddii hadda aan laga daweyn
oo dawo fiican iyo waxyaalo badan aadan laga qaban waad soo laabmaysaa marka ugu dambayso waad soo godanaysaa iska jir lugtaada ayaa gaabanaysa adigii baa soo godanaya marka dambe waad laabmaysaa marka waxaa loo baahan yahay shaqo badan in laga qabto ha yaraysanin dhakhtar fiican oo aqoontiisa leh u tag waxaa jira cirbadooyin jira daawooyin jira waa laga badbaadin karaa waa laga hortegi karaa ilaahay dawaha ku soo dejiya ku dhahaya waa tahay haddaba daawada xilligan waxaan rabnaa inaan ku siino talooyin caafimaad oo markaasi la xidhiidha haddii aad tahay qof xanuunka gaaska uu wareeriyey ee kaniiniyo caaga ku jira iyo kuwo kaloo baca ku jira jawaabka aad ku wadato ee maalin walba kaniini aad liqdo saameynta kaniiniga uu kugu yeelan karo xanuunka nooca gaaska ku hayo qaabka ugu wanaagsan ee aad ula tacaali karto ayuu cali macow daktarku diyaar u yahay inuu markaasi naga faa'iideeyo sidoo kalena haddii ay jiraan su-aalo la xidhiidha dawooyinka dunida laleeyahay waa la helay ee covid-19 waad nala soo xiriiri kartaa haddii aan kugu celiyo 86 40 eber eber ayaad naga soo wici kartaa waa 86 40 eber eber oo aad haddii dalka dibadiisa aad joogto +2521 ka hormarin karto haddii aad facebooka nagala soo xiriireysana sidaan oo kale ayaad markaas usoo bandhigi kartaa su-aalahaaga ama ismaaciil isxaaq oo kale oo sacuudiga jooga waxa uu leeyahay doctor wiil yar ayaa jira oo lugta ay xanuunayso wax juga ma aysan gaarin toddobaadkiiba marna way kusoo kacaysaa maxaa sababi kara ayuu leeyahay sacuudiga ayuu joogaa ismaaciil aad iyo aad baan kugu bacad celinayaa aniga iyo Somali Cable TV Muqdisho aan live u fadhino marka xigta reer sacuudiga Soomaalida joogta oo dhan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wiilka aad sheegayso hadda garan maayo da'diisa ma aanan garanin laakiin haddii nin yar uu yahay waxa waaye jirka waa koraya ninkan waa qof koraya lugta xanuunaysa asoo waxba qabin nin koraya waaye laakiin bal waxaad yeelaysaa yaanan mataqaan la fududaysan horta waa inaad dhakhtar aragtaa oo meeshaas raajo la saaraa waxaa jira dadka yaryar markay 16 sano ama 14 sano ama 15 sano jiro waxaa jira cudur lafaha gala oo hormoonka yimaada la yiraahdo osteosarcoma oo khatar ah marka raajax la saara hadday jirin daawo calcium vitamin D baa la siinayaa sheekada meeshay ku dhamaanaysaa lafa nin koraayo waaye lafa xanuun waa jiraa weliba markay jiifaan ilmaha ay soo kacaan ayaa ugu badan mase ma seexan karaan lafaha xanuunaya aada leeyihiin caruurta way qeelinayaan bal hala dabagalo yaan la yaraysan doctor haddaan su'aal ku weydiiyo gaaska oo kale sida xanuunada malaariyada iyo kuwa lamidka ah oo kale inta dhakhtar aado oo lay baaro oo aan isdaaweeyo ma ka raysan karaa mise markaas kaalmaantii la qaataa cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa wada su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxaa kala jira laba nuuca kala jira ama saddex nuucan iraahdo waxay ku xiran tahay horta cudurka laftigiisa xaggee buu ka yimid ma calooshuu ka yimid ma beerkuu ka yimid ma ganacuu ka yimid mise xamiitaduu ka yimid haddii kuwaan xamiitada iyo beerkii ay tahay haddii lagaa daaweeyo bis waayo waa dhammaatay caloosha laakiin hadday dawo ka badatay oo daawada gaaska intaa iska badiso oo calooshii ay qalashay waqti bay qaadanaysaa intii dib loo soo celiyay maxaa dhacay vitamiino iyo adduun iyo in lagu siiyo ay noqonaysaa marka aniga hadda dad badan runtii aan arkay oo gaas iyo wixiisa dhanba aan dibadda ugu saaray maba hadda gaas dambe iskuma arkaan ayagoo weliba dad soo dhibtooday oo aad iyo aad meel badan soo maray oo tubal la soo geliyay oo adduun soo maray ayaan arkay marka gaaska waa la daweyn karaa waxayna ku xiran tahay qofka bini aadamka laftigiisa talada dhakhtarka hadduu qaato maxaa dhacay cuntooyinka qaarkood waa loo qoondeynaya waa loo sheegaya cuntadaasaa cunin cuntadaasaa cunin cuntadaasaa cunin saa u noolow haddii waxoogaa saas u noolaado oo wixii ay okay noqdaan marka dambe cuntadiisa dib tartiibba uu dhaqan karaa waa la daaweyn karaa cudur aan la daaweyn karin waa kansar iyo wixii la mid ah laakiin waa wax la daaweyn karo barnaamijku waa barnaamijkii caafimaadka si toos ah ayaad nooga daawanaysaa xilligan stuudiyaha telefishinka Somali Cable uu ku leeyahay magaalada Muqdisho haddii aad su-aal qabto wicitaanka tooska waxaad nagala soo xiriiri kartaa 86 40 eber eber dalka dibadiisa haddii aad ku sugan tahay waxaad furaha ka soo hormarinaysaa +2521 kadib waxaad leedahay 86 40 eber eber si toos ah ayuu lambarkaagu usoo dhici doonaa saaxiibada ugu badan ee dhanka facebooka nagala soo xiriiraya amba su-aalaha intooda badan waxa ay ku xiriirin karaan amba su-aalaha ay ku aadin karaan laba ajande oo kale ah in
gaaska iyo waxyaabaha la xiriira aad doctorka weydiiso iyo daawooyinkan la sheegay in coronavirus laakiin tan saddexaad waxay tahay haddii ay jirto su-aal guud ee aad qabto oo doctorka aad weydiinayso oo muhiim ku ah su-aashay doonta ahaato doctorku waa diyaar waad soo wici kartaa waadna naga soo wici kartaa 86 eber eber doctor haddii aan usoo laabto dhanka maaragtay xanuunkan gaaska dadka kaniiniga caadaystay ee mar kasta daawada kaniiniga isticmaala ee hal nooc qaata maxaa problema uga iman kara su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa cabdicasiis daawada gaaska runtii dhibaatay leedahay faa'iidana way leedahay sidii dawo kasto sidii hadda aan maqlayo maaragtay tramadol wax la yidhahda la daldalaa daawo xanuun baabiyaa la cunaa daawaa la iska gadanayaa oo mataqaanaa diclofenac la yidhaahdo waxaas oo dhan dhibaatay keenaya oo weliba tramadolka maskaxiyan buu kuu dilayaa maskaxda wax kaa gaaraysa maskaxdaada dhan baa qarbudmaysa maxaa dhacay waa hurdaysaa adiga dhan waa nin siriran maaragtay nin aan joogin camalaa naqanaysaa maskaxdaadii bay mar kastaba wax mar kasta wax u dhimaysaa maskaxdaa kaa shuuqaysa hadda fikirkaaga iyo ayaa dhumaya marka waxaad ogaanaysaa daa waa cudur adiga aad raadsanayso adiga gacanta ka raadsanayso haye waa tahay halo salaamu calaykum walaal magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso aad barnaamijka kala soo xiriirtay walaal Khalid Axmed Allah waxaan kala soo xiriirnaa magaalada Muqdisho Khalid su-aasha aad weydiinayso Dr. Cali Macow oo la fadhiya walaal waxaan kaga faa'iideysan waa tahay Khalid khadka ayaa ka go'ay waynu ka xunnahay waxaynu fursad siin doonaa saaxiibo kale ee saaxiib dhanka Facebook naga soo galay oo Xuseen lagu magacaabo waxa uu leeyahay problem ayaa i haysto oo ah dibiryo aariyo iyo mararka qaar xanuun laakiin su-aashiis dib ayaan u dhigan doonaa waxaa suuragal inuu kusoo noqdo yarkii khadka uu ka go'ay halo salaamu calaykum وعليكم السلام qof kale cusub walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacday نجمة عبد الولي سبرية لها حمر وين كسوعي su-aasha aad weydiinayso Dr. Cali Macow Najmo waxaa weydiinaa 6 daqaaiq soo dilmata haye maxaa lahaa 3 bilood ilaa 2 bilood maba dhaafay marka aan uur yeesho makaanka dhan waa i xanuunaa sida caadadii oo kale bishii markii la gaaro waa iga soo dhacaa ilmo haye dhakhtar ma aaday oo ma isbaartay wallaahi dhakhtar waa tagay wax ii sheegana ma arkin maxaa la dhahaa infectiona ku hay bisleeni idhaa dilina waxaasaa ku hay waan dhowr maraan iska daaweeyey dilunka ilaa iyo haddana saasaa ah waa tahay Najmo waxaan fursad siinaynaa daktarka si uu jawaab kuu siiyo najma aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV Muqdisho aan live u fadhino marka xigta waxaan rabaa reer Muqdisho meel kasta ay joogaan ama Soomaaliya oo dhan ba inaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer xamar weyn khaasatan najma subxaanallah aad iyo aad baan ugu xumahay intaasoo mataqaanaa caruur inay kaa soo noqdaan caruurtaas soo noqonaya oo 2 bilood gaaraya ama mataqaanaa ka yarba waxbaa keenaya wixii keenayana ilaa hadda qafkii garan lahaa aad helin aad iyo aad aan ugu xumahay runtii inay taasu dhacdo adduunka waxaas waa mamnuuc hal xataa inuu dhaco ma aha hadday dhacdana mar dambe inuuna soo noqonin ayaa laga dagaalamaa marka najma adiga waxa waaye dhibaatada ku haysa waxaa laga yaabaa inuu yahay wax hormoon ah waxaa laga yaabaa makaanka gudihiisa inay wax ka jiraan waxaa laga yaabaa cudur la yiraahdo toxoplasma oo laga helo mukulaasha waxaa kaloo jiro cudur kaloo la yiraahdo brucellosis oo ilmaha soo daadiyo ilmaha dila oo laftigiisa laga helo hilibka xoolaha ma aragti gaduudan sida ariga iyo geela iyo laga helo ayaa jira iyo caanihiisa marka cuduradaas la rabaa horta in laga baaro la fiiriyo hadii laga helana lagu daaweeyo hadii lagu daaweeyna mataqaana ilaahay haduu wax ku siiyana ku fariisanayo marka adiga dhakhtar fiican ilaa hadda ma helin waa ka xumaa infection qabtaa kaliya arinta muku filnaanaysa maxaa dhacay intaasoo jeer hadday soo dhaceen haddii dhibkuumaba yaraba dhibbaba ku yaraba dhib weynaad aragtay allah kuu gargaaro laakiin dhakhtar fiican ka raadso najma mataqaana waa lagu daaweyn karaa ilaah baa daawo leh waa lagu daaweyn karaa insha allah xuseen anigu dibno oo sacuudi ku sugnaa oo markaasi ka hadlayay wiilka yarka ah ee lugta waxba uga dhicin laakiin muddo kadib xanuun ku soo kacaya
dhaawacna uusan ka muuqan xuseen waataan u sheegay mataqaan mise ismaaciil buu ahaa ninkaas marka waataan u sheegay cunugaas haddii da'diisa ma aanan garanin hadduu yar yahay hadduu weyn yahayba waxaa la rabaa horta hore raajo in la saaro lugta la fiiriyo meesha xanuunaysa ma wax baa ka jira cuduraa jira la yidhaahdo osteosarcom oo khatar ah in haddii uu kugu tago oo lugta dhan in la jaro ay dhaqanayso marka iska jir waxaa kaloo jira markay ilmaha korayaan ayaa waxaa dhacaysa maaragtay calciumka iyo vitamin D-ga ayaa ku yar annaga saad ogtahay nafaqada aan qaadano caruurteena ma laha aniga jarmanka waxaan aqaanaa ilmaha iyagoo 1 sano ku jira lagu bilaabayaa daawadaas marka saas daraadeed lafooda intay la egyihiin aniga lafeegaysa u yaryaryihiin iyo caruurteeda meesha ku dhasheen isku midba maniinba maxaa dhacay dawooyinkaasay heleen adduunkaasay heleen nafaqay heleen marka fiiri inuu calciumka vitamin D-ga ku yaryahay hadduu yahay kaasaa la siinaa sheekada meesha ku dhammaanaysaa laakiin haddii kale lugta horta waa in raaja la saaraa soon la saarin ma suuragelayso waa tahay daawade dadka qaar waxayna soo weydiinayaan lambarka waa sax waa lambarka facebooka ku qoran shaashada telefishinkana wuu kaaga muuqdaa waa 86 eber eber haddii si kale aan u dhahno oo dalka dibaddiisa aad ku sugan tahay ayaad furaha ka hormarinaysaa +2521 waa lambar line ah sidaa daraaddeed sida ayaa usoo wici kartaa barnaamijku waa barnaamijka caafimaadka waxaanu ka hadlaynaa maanta gaaska iyo weliba daawada cusub ee la sheegay in covid-19 laga soo saaray haddii ay jirto su-aal kale oo caafimaada oo aad qabtana dhakhtarka waad soo weydiin kartaa doctore dadka qaar waxay inoo sheegayaan amba ay leeyihiin haddii caloosha layga hayo oo aaryo badan ay jirto oo xanuunna uusan jirin oo mararka qaarna dabriye ay jirto gaaska ma saameyn ku leeyahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ninkan laftigiisa facebooka naga soo galay oo sheegaya dibiro fara badan haddii mar aad dibiro aragto waxbaa ka qaldan caloosha hawo badan hadday suubinayso waxaa jira bahalo la yidhahdo H pylori bacteria campylobacteria mid la yidhahdo E coli kuwa kale maaragtay ayaa jira oo eerka sameynaya haway sameynaya hawadaas hadday samayso waxa waaye degerationkiisa xun calooshii ma shiidayso wixii lagu shubay ma shiidayso koray ku haraysaa marka xataa waxaa dhici karta waxa la yidhahdaa pancreaska ama ganaca loo yaqaano inuu dhibaato qabo oo wixii lagu shiidi lahaa aan soo daadinayn waxaa meeshaan wada shaqayn baa socota caloosha markaa cuntada ku shubto xamiitada iyo beerka iyo ganaca waxaa ka soo baxaya dhacaan baa ka soo baxaya dhacaankaasa caloosha imaanaya oo shiidaya oo wixii sidoo lagu fududeyn lahaa lagu shiidi lahaa bahal subag meeran oo cagaaran ah soo baxaya kiibaa meesha lagu shubayaa marka waxa la yidhahdo tripshin antitripshin hormoon la yidhaahdo ayaa lagu soo daadinayaa meesha lagu qasayaa sidii makiinadii oo kale loo dhaqayaa markaasay soconaysaa haddii dibire ay timaado waxbaa ka qaldan marka wixii ka qaldan waa in la ogaadaa haddii aan la ogaaninna dibiradaada iska wadanaysaa daaco badan iyo dhuuso badan kaa bixaysa waana dhibaato cuntana ma qaadan kartid marka haddii ay taasu jirto dhakhtar raadso gaaska hal qodob ayuu ka naqin karaa inuu yahay laakiin maaha keligiis mahad calaalo facebook nagala soo xiray waxa uu leeyahay dhaawac ayaa iga gaar neerfaha gaar ahaan xangulada dhabarka qaybta dambe muddo 4 sano hal kaniini ayaan qaataa welina xanuun ayaan dareemayaa kaniiniga ma iska bedeli karaa ayuu leeyahay haddaan bedelna maxaan ku bedeli karaa mahad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa laftigiisa facebooka naga soo galay aniga iyo Somali Cable TV muqdisho aan live u fadhino waa salaamaynaana markii xigta waxaan leeyahay haddii dawadii ay waqti muddo badan qaadatay waxaa laga yaabaa dawadii inay la qabsatay jirkaaga inuu la qabsaday marka waxaa loo baahan yahay dhakhtar inaad u tagto horta hore la fiiriyo cudurkii heel adiga jugti ku gaartay intee buu marayaa marka dawo abadiyan qaado oo xanuun baabi'iya laftigeeda waa laga roon yahayo waxaa la rabaa in la ogaado war xanuunkan ma wax maaragtay laf miyaa jabtay ma wax baa tirir galay ma wax baa tirir gaaray marka ma muruqa wax gaaray marka in la ogaado bal horta hore markaas kadib waxaa laga yaabaa in laga badbaadin karo daawadaas faraha badan aad qaadanayso ilaa abadiyan bal hadda haddii aad qaadanayso 10 sano ka bacdi maxaa samaynaysaa marka maaha dawada iska qaadee bal horta hore fiiri aniga hadda ka horna waa sheegay haddana waa sheegaya waxaa jira marka aad 60 sano ama 55 sano aad dhaafto oo lafaha laga hayo dawo abadiina u baahan tahay ma dhaafi kartid
haddii daawadaas aad dhaafto laf xanuunkaagu waa kuu soo noqonaya maxaa dhacay da'dii waa soconaysaa laakiin nin yar haddii aad tahay oo 30 jir iyo 25 sano ku jira iyo 35 sano daawo ma u baahnid oo abadiin in la qaato oo laf xanuuna ma u baahnid hadday jug ku gaarto xataa jugta waa la ogaan karaa waana laga badbaadin karaa ilaah baa wax badbaadiya dhanka waxaan rabaa mar kale inaan u jawaabo saaxiibada telefishinka markay daawanayaan soo waca haddii aysan kor ku qornayn calaamadda toos sida iminka ku qoran qaybta sare ee shaashadda toos barnaamijku markaas ma socdo ha soo wicin laakiin haddoo kale oo barnaamijku ay ku qoran tahay toos waad soo wici kartaa si su-aalahaaga aan kaaga jawaabno dad fara badan ayaa fariimo iisoo diray telefoonka lama qabto maalin aan ahayn maalinta jimcaha barnaamijkuna wuxuu baxaa jimco walba xilligan oo kale sidaa daraaddeed intaas waxaan rabaa inaan u sheego saxaabta nagu xiran hadda waxaad naga soo wici kartaa 86 40 eber eber dalka dibadiisa joogto plus 2521 ayaad ka hormarinaysaa sida aad noo soo qoraysaan waa sax waa 86 40 eber eber kadibna si toos ah ayuu telefoonka idinkugu soo dhici doonaa doctore marka laga hadlayo xanuunkan gaaska soomaalidu hal nooc ay u taqaanaa oo inuu caloosha ku dhaco amba uu ku dhaco laabta oo boga uu huro ma jiraan siyaabo kale oo dadka ugu dhici karo oo sidaa ka khatar badan amba ka xanuun badan cabdilcasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashan waa su-aal laftigeeda muhiim ah maasha allah marka gaaska horta soomaalida waxay ku leedahay waxaa laygu sheegay gaas mandhicireed gaas calooleed ma jiro hal gaas keliya jira caloosha ayaa gaas waxa la yidhaahdo HCl ayaa ku jira hydrochloride la yidhahdaa hydrochloridekaas gaaskaas waxaa loogu talagalay oo ilaahay xaggiisa loogu talagalay cuntada inuu burburiyo haddii inta lasoo bixiyo banaanka meel lagu shubo bir haddii lagu shubo hore uu ka guba markiiba meeshuu ku gubayaa asitada la sheego waay marka kaas ayaa wax ah wuu badan karaa xoogaa wuu ku dhibi karaa daawada loo soo saarayna waxa kale maaha in lagu dejiyo lagu yareeyo ayaa loo soo saaray laakiin daawada ma loogu talagelin inaad iska daldasho abadiyan iska qabso ma aha haddii da' tahay waa qasab haddii aad yar tahay laakiin qasab ma aha inaad daawada saa u daldasho hal mar haddii lagu daaweeyo oo mar labaad lagu daaweeyo waa kaa ciribtirmaya haddii aad dhegaysato dhakhtarka wuxuu kuu sheegaya laakiin haddii adiga qof iska adag adan ahayno cuntooyinka xadxadaya oo cunaya laakiin waa kuma ku dhaafaayo caloosha mar kastaaba waxay kugu suubinaysaa oo ku dagaal bay kugu wadaysaa marka soomaalida waxayba u badan tahayba oo aad iyo aad u dhibaato badan intay meelaha tagaan ay leeyihiin gaas ay ahay si daawada gaaska oo iska daldalaya sidii mataqaanaa cambuuladii oo kale ama daagadii oo kale loo cunaya marka taas waa dhibaato ama xanuun baabiya ha ahaado ama diclofenaga la sheegaya ha ahaado ama geedkan maaragta ramadoolka la leeyahay dhibaatuu samaynayaa soomaalidii waxaaba loogu baari layahay war daawooyinkan wax fiican maaha daawooyinka waa khatar dhibaatay ku geysanayaan markaad yar tahay ma dareemaysid laakiin 10 sano markaas ka bacdi curyaan baad naqanaysaa waa curyaamaysaa war subxaan allah war adiga ha is dhibaataynina dhalinyarada waxaan tala ku siinayaa meelkasta ay joogaanba war daawooyinka iska ilaaliya de wax fiican ma aha waa maasan tahay dhanka wicitaanada tooska halo asalaamu calaykum وعليكم السلام iska dami tv-ga amba ka fogow si aan isku maqalno soo dhawow waan ka fogaanaa aye magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso walaal waxaan joogaa dalmada yaqsi magacaydu waa faadimo cabdulle faaduma su-aasha aad qabto su-aasha aan qabo madax xanuun zaa'id aan leeyahay daas oo calooleedna waan qabaa ma saamayn karaa dhakhtarta inaan weydiiyo xanuunka madaxa ka haya ayaad ka cabsanaysaa inuu gaaska ka yimid waa daawo ma qaadataa gaaska daas calooleed baa lagu sheegay in muddo dhowr sano waa yahay bal jawaabta iyo daktarkaan siinaynaa faaduma yaqshid nagala soo xiriirtay faaduma aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa reer muqdisho mar kale waxaan leeyahay marka saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer yaqshid oo adiga aad degan tahay aniga iyo Somali Cable TV aan live u fadhinana waa ku salaamaynaa oo salaan oo muslimka iyo gaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan ku leenahay marka xigta faadumo gaaska iyo madax xanuunka se u badan tahay isku shaqo ma aha madax xanuun wuxuu ka imaan karaa meel badan oo ay dhibaato ka imaan karto laakiin gaaska waxaad naqanaysaa markuu ku wareeriyo
nervous aad noqonaysaa xanaaq badan baad yeelanaysaa weliba daawada haddii aad daldasho aad markasta qaadato maba warba ma adkeysan kartid war kastaaba waa ku dhibayaa wax walba waa ku dhibayaa caruurta qayladooda ku dhibaysaa wax walba ku dhibaya dhagaamu sidaasaad ku haynaysaa marka laakiin isku shaqa maaha madax xanuunka meel kaloo ka socdaa marka waa inaad iska fiirisaa gaaskana shaqa kuma laha marka gaaska laftigiisa waa dhib badan yahay laakiin wuxuu u badan yahay cuntada inuu ku diido dibiro inay yeelato in mataqaan laabjeex fara badan cuntooyinka qaarkooda mise shaaha qaarkiisa haddii raarinjiga ama aad cabto inuu kugu soo kaco iyo waxyaalahaas oo kale laakiin madax xanuun laguma yaqaan waa tahay samsam bintu axmed oo jigjiga nagala soo xiriirtay dhanka facebooka waxay leedahay dhakhtarka waxaad ii weydiisaa waxa ay haya ayay leedahay dhinaca ay xanuun ayay leedahay gacan lug garab dibriyaa mararka qaar dareema marwo la qabaanahay muddo 2 sano ana wax awlaada ma aan yeelan marka doctorka ii weydiiya ayay leedahay samsam aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa aniga iyo Somali Cable TV live aanu fadhino Muqdisho marka xigta waxaan rabaa reer Jigjiga ama waxaan leeyahay Soomaalida Ethiopia oo dhan meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dowlad deegaanka oo dhan marka xigta waxaan leeyahay samsamay horta tan ma aragti dhinaca ku xanuunaya waxyaalo badan baa keeni kara aniga garan maayo hadda dhiikarka ma aragti barasharka waa in laga cabiraa la iska fiiri barasharka horta taas waa muhiim marka xigta sida wax u sheeganayso 2 sano haddaadan wax dhalin waxbaa dee kaa qaldan inkastoo mataqaanaa ay jiri karto meel badan ay ka imaan karaan wuxuu ka imaan karaa haddii adiga odayga iyo adiga waqtiga munaasabka ay tahay inaad is aragtaan oo uur lagu qaadi karo ilaah baa bixiye inaydan is arkin haddaydan is arkin oo waqtigii ay kala dheer tihiin ama adiga waqtiga diyaarka aad tahay weliba adiga muhiim ah isaga maaha adiga waqtiga diyaarka tahay haddii aad is aragtaan waxaa laga yaabaa in mataqaanaa aad qaado uur ilaah baa bixiya ubad ilaah baa bixiya ilaahay ubad khayr qaba ha ku siiyaan ku leh haddii kale waxaa loo baahan yahay in lagu ogaado xaydka siduu yahay adiga haddii caafimaadkaaga siday tahay ma qoyaan baa baxaya oo kaa baxaya xinjiro miyaa kaa baxaya caadada ma waxaa ku jirta maaragta xaydka ma waxaa ku jira maaragta wax mataqaana dhareer ah sideeba xaalkaagu yahay waa in la ogaadaa markii taas la ogaado baaritaankaas markii la ogaado ayaa la ogaan karaa waxa kuu diidaya uur inaad yeelato marka waxaad arkaysaa waxaad u baahan tahay bal dhakhtar insha allahu dhakhtar ka raadso alo salaamu calaykum walaal iska fogee TV-ga amba ka dheeraaw si aan isku maqalno soo dhawow barnaamijka waa ku jirta waan ku maqalnaa soo dhawow walaal waxaa qabay su-aal aa weydiinaa doctorka magacayga waa Juweerihiisu Muqdisho jooga waxaa isku arkay adiga hur oo oogada oo waan gartay marka doctorka ay weydiin lahaa hurkaas adiga bilooyin badan ay haayaa oo oogada jirka dhan huraa maanta dhan xitaa dadka uu jira madreeridiya afraad saac isku shubaa calaacalaha iyo lugaha iyo oogada dhan baa ugu darnaadaan muddo ilaa intee leeg hurdadeeda normal waa caadi waaye marmarna waa iska marna caadi waaye normal laakiin madax xanuun zaa'idaa qabaa da'daada noo sheeg iyo muddada xanuunkan aad dareemayso da'deeda aad mastaxaa jiraa muddada xanuunka dareema adiga 2 sano ku doodiya waa maasantahay Juweeriya Muqdisho soo aaday Juweeriya aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su'aashan aad weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV Muqdisho aan live fadhino marka xigta waxaan ku leeyahay meesha aad joogto Muqdisho markii saddexaad markii afraad waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meesha adiga xaafadda aad joogto weliba qaasatan aan salaamaya marka Jawaahiray waxaan ku leeyahay adiga waxaad iska baaraysaa 23 sano hadda jirta gabar yar baa tahay 3 cudur waa in la jirkaaga laga fiiriyaa marka ugu horeyso thyroid wax la yiraahdo iska fiiri thyroid wax la yiraahdo waxa jira oo dhuuntaas gala oo mataqaana muhiim ah waa taas waa hal qodob qodobka labaad waxa weeyaan wax la yiraahdo brucella iyo toxoplasma mukulaasha iyo xoolaha laga helaa laftigiisa kuleel fara badan buu leeyahay oo jirka geliya labadaas cudur adi saddexdaas cudur thyroidka brucellka iyo toxoplasma intaasu iska fiiri waxbaa laga qaban karaa marka haddii intaas wax ay ka soo bixin
dawo vitamin B complex ayaa lagu siinayaa sheekadaada waa dhammaanaysaa oo wax la daweyn karo wax weyn ma aha insha allahu ilaah baa dawo leh waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka caafimaadka ayaan isla soo gaarnay daawade maanta waxaynu diiradda saaraynaa amba xilligan haddii habeenay ku tahay haddii ay maalin ku tahaba topic ku aadan gaaska iyo saameynta uu ku leeyahay soomaalida daawada cusub ee covid-19 ee dunida maantu ay shaacisay meelo ka mid ah in tahay tii loogu talagalay xanuunkaasi oo doctorku inoo sheegay in horey ay u jiri kartay qadadka ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum Waalaikum. walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirtay Yaa waay, doctorka miya? doctorku wuu ku dhageysanayaa soo dhawow Walaal waxaan qabaa su-aashan waxay tahay magacaygu waa Faadumo Aadan oo ku nool magaalada Muqdisho. Marka doctorka waxaan weydiin lahaa waxaa laga hayaa lugaha. Marka cirbaha ma ka socon karo waxaad sheegmayeen misbaar iyo sidoo kale ximnaha. Marka dambe waxaan aaday dhakhtarka lafahaan aaday. daawooyin oo isoo qoray dhakhtarka marka daawooyinka oo isoo qoray kaniiniyaal waa cabay. Marka waxaan waan ka fahmay mar labaad oo laabtay. Marka wuxuu isoo duray cirbado oo cirbta isoo duray. Marka cirbado oo isoo duray 2 maalmo kadib waxaan arkay ama dhan oo isla bararayo indhihi dhan ay cunayaan wajiga oo dhan sidoo kale afka igu go'ay ilaa ay runta dhan ay xanuunayso. Marka dambe dhakhtar kale oo laabtay kii mid kale aan aaday wuxuu isoo siiyey daawiyaan oo khamijiyo isoo siiyey daawooyinkaan isticmaalay. Marka dambe wixii waa ka bogsay waa ka fiicnaaday maasha allah. haddana waxaa igu soo laabtay afkii oo marmar soo bararaya faruurtii oo soo go'eyso iyo cuncunkii oo wajiga igu soo laabanayo daawooyinkiiba oo kiimika aan dawaaday. marka doctorka maxay yihiin cudurkaas dhuuntan way xanuunaysaa. Faadumo meeqa sana jirtaa yaa da'daada waa meeqa jir meeqa sana jirtaa 26 aan jiraa 26 jirtaa waa tahay marka su-aashaada jawaabteeda Dr. Cali Macow ayaan u gudbinayaa waad mahadsan tahay faadumo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa reer muqdisho markii shanaad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa aniga iyo Somali Cable TV muqdisho aan live u fadhino marka xigta waxaan ku leeyahay faadumo horta marka adiga daawada lagu siiyey daawo jirkaaga qaadaysa ma aha allergy baad ku qaaday xasaasiya ayaa ku qaaday difaaca jirkaaga ay hoos u dhigtay marka afka ku bukado afka ku mataqaanaa ay boogag aad ka yeelato iyo barar iyo waxaween macnaheed daawada lagu siiyey jirkaaga ma qaadayso sida ugu dhaqsaa badan jooji horta daawada maxaa dhacay dhibaato ay ku keenaysaa wadna garaac fara badan ay keenaysaa neefteed ay kugu xirantay keenaysaa marka difaaca jirkaaga ay hoos u dhigaysaa taas waa hal qodob midda labaad hadda waa subxaanallah cirbad liska duro cirbta weligay ma maqlin mana arkin waaba khataraad ba gashayba marka adiga waxaad yeelaysaa cirbta waxaa kaa galay sidii hadda aad sheegayso daawada kale lagu soo qoray waad ku fiicnaatay oo marka waxaa ku jira wax la yidhaahdo inflammationkana wax kale maahan arthritis wax la yidhaahdo inkastoo 26 sano aa ku jirtay gabar yar aad tahay adiga infection oo ku galay oo kugu daahay oo xogaa yar lafaha kaa galay waay cirbtaas oo weliba subaxii markaad soo kacdo adan ka socon karin daawooyin ay leedahay cirbada waa leedahay laakiin cirbad sinta la iska duro ay leedahay maaha mid cirbta la iska duraayo cirbta waa khatar maxaa dhacay meeshaas waa meel qallalan waaye oo aad iyo aad u qallalan oo toos looma duri karo haddii toos loo duro dhibaatay leedahay laakiin waxaa jira takhaatiir takhasuskeeda leh oo toos meesha u diri kara kuwaas waa wax kale marka daawooyinkii lagu siiyey ayaa dawo jirkaaga aan qaadi karin oo xasaasiya leh waaye iska jir daawooyinka hadda haddaa qaadanaysidna jooji marka waxaad u baahan tahay dawo xasaasiyada bi'isa iyo dawo afka la mariyo oo barto nabrahaas iyo difaaca jirkaaga soo celiya taasaa hadda u baahan tahay adiga waa tahay doctorada maasan tahay waxaan filayaa saaxiibo badan oo na soo wacay oo su-aalo muhiima qabay in looga jawaabay kuwo kale oo aada u fara badan oo qoraallo loo soo qoray ama qadku ciriiri uu ka naqdana suuragal ay u naqo weyday dhammaan su-aalihiina toddobaadka dambe ayaan u dhigan doonaa iyo mawduuc kan ka duwan laakiin waynu qaadaynaa su-aalaha jawaabahoodana diyaar ayaan u nahay barnaamijku waa barnaamijka caafimaadka waxaan malaayiin jeer u mahad celinayaa Dr. Cali Macow Aweys oo marti noogu ahaa su-aalahana ka jawaabayay dhanka farsamada waa injineer cabdiraxiin xuseen ceelaawe iyo weliba Sayd Cali waxaana sidoo kale
dhanka stuudiyaha london inoo jooga bashiir bocor iyo shariifow waa soraha barnaamijka cabdilcaziz rigood intaan dib u kulmayno nabadgelyo